su'aalo iga soo weydiinaya caawa arrinta iigu dhacday oon rabaa inaan si fiican ugu faahfaahiyo. waxaan marayay hoteelka Star ama xaafadda Calaamada horteeda anoo maraya ayaa dukaan baan ka soo baxay oo markaa ka adeegtay. dukaankii markaan saa uga soo baxay waxay la kulantay qabtan oo ciidan yaacaya ayaa walaal maxaa dhacay waan ku jira adigu muran yar kadib wax alla waxay ii sheegeen ma jiraan warqad ama dacwad ku socota oo warqad ay sidaan oo ay igu soo dacweeyeen saycidi ama dibaan sameeyay iimayshi already adigu gacan baa la igu bilaabay ilaa dhowr iyo 10 askari ayaa gacan ay qaaday nabarada ii geystay. ma goobtii bay kugu dileen marka ay kaa heleen mise saldhig baa loo geeyey? goobtu waa wadada dhexdeeda la igu garaacaya gaari baa la saaray ilaa intaan gaariga sii saarnaa nabarada igu dhacay. maxay ahaydey sidaasay u dhacday. saldhiggii baa la geeyey wax dembi oo laygu haysta la iima sheegin warqad layga soo gudbiyey lama sheegin. saldhig waa kee loo geeyey? saldhigga quracdheer baa la geeyey. oo bima laga qoray markii saldhigga loo geeyey? xataa layga qoray ma jiro waxaasan ugu haysanaa layma odhan dibadun baa la iisoo saaro la iisoo tuuray. hadda saldhigga gudihiisa jirdil miyaa lagugu geystay? nabarro way igu dhacayeen intaan sii socday ilaa markii lay qaaday. wax hadala ma istiraadeen nimankii meesha haystay markii? nimankii kelmad bay igu yidhahdeen aad aan uga sii xumaaday runtii. waxay igu yidhahdeen waan ku garanaynaa weliba heesahaagana aad baa loo jecel iyo fankaaga. laakiin waxaa iga yaabisay qof ciidankaygii oo boolisa oo weliba i garanaya oo weliba heesahaaga waan heesayaa ilaah sababta igu geystay nabar ama igu dilay baa iga sii qiiraysiisay runtii. waa su-aal la iskaga noqon doono. waxaan ka codsanaya anigoo qoray marka iskama fikirayo waxaa jira 100,000 kun oo qof oo nabarrada aniga igu dhacaan habeen walba ay ku dhacaan iyagoo kiisii dembi geysan. waxaan ka codsanayaa ciidanka booliska insha allah mar dambe inaan qof aan dembi geysan aanu nabar ku dhicin. waa war la iskaga noqon doono. dowladda waa xadgudubka iyo tacadiga ka socda gudaha dowladda iyo magaalada gudaheeda. waxaa jirdil loo geystay qof celebrity oo magac leh oo la garanayo weliba isagoo garanaya dembi la-aan lagu jirdilay. waad ujeedaa ninkan nabarada ku yaala wejigiisa jirkiisa inta kale nabarada ku yaala ka badan dhowr iyo 10 askari saldhigga qurac dheer ka tirsan ee magaalada Hargeysa. muuqaalkaygaas ciddi kasta uu soo gaadho waa inaad sii share garaysaa. waa in la faafiyaa muuqaalka. waa in jawaab degdegana sida ugu dhaqsaha badan laga soo dhiibaa.